madaxweyne iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulo laga dhisay mashaariicda la yiraahdo peace buildingka ama oo la yiraahdo peace dividend oo loogu talagalay inay nabadda iyo horumarka lagu taageero madaxweyne wasaaradda waxbarashada galmudug inaad maanta halkan kala soo qayb gasho aaday ugu faraxsan tahay waxaan kaloon doonaynaa inaan kuu sheegno galmudug safarkaadii nabadda laga soo bilaabo ee anigu aan kugu wehliyey baahiyaashii adigu ka soo qayb gashay oo bulshadii reer galmudug safarkii dheeray ay kugula wadaagaysay wasaaradda waxbarashada galmudug dhammaan inta badan waa ay hirgelisay wixii aysan hirgelinina ayagoo pipeline-ka ku jira ay hadda diyaar yihiin waxay noo tahay runtii farxad bay noo tahay fursad bay noo tahay inaan halkan ku xarig jarno dugsiga sare ee degmada Cadaado oo runtii dugsi si casri loo dhisay baahida waxbarasho guud ahaan ka jirta galmudug gaar ahaan degmada Cadaadana kaalin muuqata ama qayb weyn ka qaadanaya wasiir waxaan kaga mahad celinaynaa inaad caddaysay baahiyihii waxbarasho ee aan u kuurgalnay dhammaan deegaanada galmudug markii aan marnay inaad ka jawaabteen intooda badan inta dhimanna ay tahay in ku jirta pipeline-ka oo diyaarsan waa ku mahadsan tihiin sidaan u qorshaynay ugu talagalnay in looga jawaabay loona hirgeliyey iskuulaad ama gooba waxbarasho ama ha noqdeen dugsiyada sare ama ha noqdeen dugsiyada dhexe ama midba baahidii jirtay iyo deegaan walba baahidii ka jirtay inaad maaragtay ka jawaabteen sidoo kale waxaan halkaan rabaa inaan ammaan iyo bogaadin ba usoo jeediyo wasaaradda waxbarashada tayada waxbarasho ee ay leedahay galmudug oo runtii maantaba ay arday la yidhaahdo axmed cabdiraxmaan axmed uu kaalin keenay weliba uu ku galay imtixaanka ku galay degmada baxdo xilli xaaladu ay adkaayeen oo duruufo adag ay ka jireen degmadaas waxayna runtii ardaygaasna waxaan leenahay hambaliyo waana bogaadinaynaa dhiiro gelinaynaa waana garab istaagaynaa insha allah waxaan rajaynayaa inay sidaas iyo si kasii habboon ay ardada iyo tayada waxbarashada galmudug ay wasiirka aad ku hogaami doontaan